howlgalla saaka ay ka sameeyeen ciidamada daraawiishta koonfur galbeed Soomaaliya deegaanka lagu magacaabo Gawaawin oo hoos taga degmada Dinsor ee gobolka Bay ayaa waxa ay ku dileen 6 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab laba ka mid ahna meedkooda waxa ay keeneen degmada Dinsor ee gobolka Bay sida uu ii sheegay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga degmada Dinsor Cabduqaadir Shacbaan sidoo kale waxa uu ii xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka degmada Dinsor in howlgalkaasi uu ku dhaawacmay taliyihii ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee degmada Dinsor taliyow Macalin Sheene sida uu ii sheegay saaki aroortii ayaa waxa maqalnay nimankii nabadiidka in ay magaalada ku soo dhawaadeen dad shacabena ay barakacanayaan halkan halaga guur ay leeyihiin weel Gawaawin meel la yiraahdo haye marka kadib maxaa dhacay kadib waxaa dhacay ciidamo aan dirnay oo ciidamadii koonfur galbeed oo ayaa waxay isku heleen goobtii nimankii reer baadiyaha ay ku tumayeen oo xoolihii guur ay lahayn cidii dhexdooda la isku helay ay marka sida nagu maqaalaa meesha waxaa ka dhacay dagaal maxaa khasaare oo ka dhashay waxaa khasaare oo ka dhashay calaaya xaasil dad badan laga laayay laakiin waxaa noo suurtoobay laba qof meydkood inaan ka soo qaadano meeshii waa dad shabaab oo qoryahoodan laga soo furtay ayagoo kuutaysan meydkooda magaalada la keenay calaaya xaasil waxaan ogaantiina hadda ilaa iyo 6 ilaa iyo 7 la leeyahay dhaawac lama rabee kulley annaga saldhig hortiisaan dhignay kulley hadda iyo kadib waan ka gaashaa waxaan ka samayn lahayn hadda kadib maamulka aan digaan go'aan aan kaga gaarayna taliyow ciidamihii taliyow macalin la yiraahdaa asaga dhaawac waayo dhaawaciisana waa fudud yahay alxamdulilah jirib korkiisa wax ka gaareen maya haddeetaan ka soo tagay xaaladiisa waa degan tahay dhaawaciisana waa sahlan alxamdulilah way deegaanka hadda dagaalka uu ka dhacay oo howlgalka saaka aad ka sameyseen yaa gacanta ku haya annaga gacanta ku hayno dhaqdhaqaaqyo ciidanna waa wadnaa deegaankan sida gaarka ah howlgalka uga dhacay waxaa hadda ku sugan ciidamada daraawiishta koonfur galbeed Soomaaliya waxauna ii sheegay gudoomiye ku-xigeenka inay sii joogi doonaan haddana ay u qorsheynsan tahay inay tagaan deegaano kale oo uu sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay dadka ku barakicinayaan Axmed Cabdulqaadir Yarow Axmed Saadaq Radio Kulmiye Baydhabo